Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada kanaalkeena Baadadoon. Muuqaalkeena maanta waxaan ku falanqayn doonaa buug la yiraahdo Make Your Bed. Muuqaalkan wuxuu horudhac u yahay muuqaalo badan oo aan buugaag kale ku falanqayn doono. Si aad noola socoto, fadlan nagu soo biir oo muuqaalka like saar, kanaalkana subscribe saar. Aad iyo aad baa u mahadsantahay. Buuggan waxaa qoray sarkaal ka tirsanaan jiray ciidamada badda ee dalka Mareykanka oo lagu magacaabo William McRaven. Sarkaalkan wuxuu soo noqday taliyaha ciidamada howlgallada gaarka ah ee Mareykanka, gaar ahaan wuxuu ka soo shaqeeyay dalalka Ciraaq iyo Bakistaan. Wuxuu ahaa taliyihii guud ee ciidamadii qabtay Saddam Hussein iyo weliba kuwii dilay Osama bin Laden. Qoraagu waxa uu buuggan ku qoray 10 cashir oo uu ka bartay intii uu ku guda jiray tababarkiisa ciidannimo. Maalinkii koowaad ee uu tababarka ciidannimo bilaabayay, sarkaalkan ayaa mid ka mid ah macallimiintoodii wuxuu ku yidhi hadalkan soo socda: wax walba waan samayn doonaa si aad isku dhiibtaan. Waxaan idiin dhibi doonaa si naxariis la'aan ah. Asxaabtiinna hortooda ayaan idinku ceebayn doonaa. Wax iidnan awoodin ayaan idiin diri doonaa. Waxaa ii muuqata in badankiinnu aad isdhiibi doontaan. Waxaan hubaa in aad mari doontaan xanuun, weliba mid aad u fara badan. Balse aan hal wax idiin sheego: haddii aad isdhiibtaan, noloshiinna inta ka harsan ayaad ka shalaayi doontaan. Isdhiibitaanku marna wax kuu fududayn maayo. Qoraagu wuxuu aaminsan yahay in cashiradan ay ka dhigeen mid ku guulaysta tababarkaas aadka u adag. Sidoo kale ay muhiim u yihiin guulaheena nolosha caadiga ah oo aan kula tacaali karno dhibaatooyinka ina soo wajahaya ee keliya aysan gaar u ahayn ciidamada. Cashirka koowaad: maalintaada ku bilow inaad wax uun qabatid. Haddii aadan waxyaalo yaryar sida saxda u qaban karin, macquul ma ahan inaad waxyaalo weyn guul ka gaartid. Subax walba oo aad soo kacdo waa inaad dabeecad ka dhigato inaad hawl yar qabato. Tusaale ahaan, inaad sariirtaada hagaajiso, inaad jimicsi samaysid, ama inaad ilmaha yaryarka ah iskuulka u kaxaysid. Markii aad dabeecad ka dhigato inaad subax walba sariirtaada hagaajiso, waxay niyadaadu dareemaysaa inaad hawl iyo waxqabsi diyaar u tahay ee aadan doonayn caajis iyo hurdo. Maalinteennu waxay ku bilaabanaysaa guul, waxaana maalinkaas u arkaysaa fursad aad hawlahaada ku qabsan kartid. Markaad hawlahaada soo dhammaysatidna, waxaad u imaanaysaa sariirtaadii oo kuu hagaagsan oo aad ku nasan karto, ileen qof soo shaqeeyay ayaad tahay. Cashirka labaad: keligaa ma awoodide dadka kale xushmee. Ka soo qaad in noloshu ay tahay doon bad ku dhex soconaysa, weliba doontu ay tahay nooca labada qof ama ka badan ay ku wadaan badeelada. Soomaalidu waxay tiraahdaa gacmo wada jir ayay wax ku gooyaan. Haddaba adigu waxaad u baahan tahay dad wax kula qabta. Si kasta oo aad diyaar u tahay amba aad awooddeeda u leedahay, doontaas keligaa ma wada kartid. Waa in qof ama ka badan ay ku caawiyaan. Cashirka saddexaad: baaxadda qalbigaada oo keliya ayaa muhiim ah. Muhiim ma ahan midabka jirkaada, dhererkaada, iyo waxaad aaminsan tahay. Waxaa muhiim ah xaddiga rabitaankaaga ee aad rabto inaad wax gooni ah guul ka gaartid. Haddii 100% ay kaa go'an tahay inaad duuliye ama dhakhtar noqotid, waad noqon kartaa. Keliya waxaad u baahan tahay dadaal dheeraad ah. Haddiise aysan kaa go'nayn, si kasta oo aad ugu habboon tahay, noqon maysid. Cashirka afaraad: noloshu cadaalad ma ahan ee hore uga soco. Mararka qaar waxaa macquul ah inaad dadaal badan u gashid helidda shay gaar ah. Dadaal kasta oo aad bixisidna aadan waxaas helin. Ma jirto cid noo ballan qaaday inaan helayno wax walba oo aan doonayno. Waxyaalaha qaarkood waa kuwo aan naloo qorinba. Waayista aan waayayno kama dhigna dadaal xumadeenna ama khalad dhankeenna ah, balse waanse naloo qorinba ee waa in aan hore uga soconno. Ogow, wax walba oo aad weydo haddaa aamintid inay yihiin wax aan laguu qorin, maqnaanta waxaasna ay adiga dan kuugu jirto oo uu Alle kaa qabtay, waxaad ka badbaadaysaa inaad ciishooto. Si sahlan ayaadna ku dhaafi kartaa. Cashirka shanaad: guuldarradu waxay kaa dhigaysaa qof awood leh. Guuldarro walba waxay ina bartaa cashir. Cashirkaas haddii aan isticmaalno, waxaa xaqiiqo ah in markaan aan ka awood badannahay markii hore, waana macquul in aan guulo badan gaari doono. Maanta haddii aad xaqiijin weydo arrin aad doonaysay, ugu yaraan waxaad ogaanaysaa sababta ku celisay. Balse berrito waad guulaysan maadaama aad og tahay waxa ku celiyay shalayto oo aad iska ilaalinaysid. Cashirka lixaad: u xeeladayso si wanaagsan. Oraah ay isticmaalaan ciidamada hawada Ingiriiska ayaa odhanaysa: kuwa xeeladaysta ayaa guulaysta. Caqabaduhu mar walba way ina celin doonaan haddii aanan mararka qaar qaadan khatar. Khatarta aan qaadanayno waa inay noqoto mid aad looga fikiray, la og
ogyahay dhibaatooyinka ka imaanaya aadna loo qorsheeyey qaabkii loo qaadan lahaa. Cashirka 7 is-hortaag ama ka hor imow cagajuglaynta. Mar walba oo aad hawl ku jirtid, waxyaalo ayaa kaa hor imaanaya kuwaas oo ku cabsi geliya. Waa in aad wajahdo oo aadan ka cabsan kuwa ku cabsi gelinaya. Marka aad badda quusto ee uu ka hor imaado libaax badeedku, waa in aadan ka cararin. Haddii aad ka cararto, waa uu ku cuni, balse haddii aad dhinaciisa u soo dabaalato, aadna qanjirrada feer kaga dhufato, isaga kaa cararaya, oo sidaas ayaad ku badbaadday. Aan qaabkaas ula dhaqanno waxyaalaha cabsi gelinaya ee na hortaagan. Cashirka 8 hubkaada oo dhan waxba ha la harin. Waqtiyada adag ee aad marayso, waa inaad adeegsataa dhammaan xeelad walba oo aad adeegsan karto si aad uga gudubto marxaladdan. Haddii lagaa doonayo in 5 kitaab aad akhrisid si aad imtixaan ugu baastid, waa inaad dadaal dheeraad ah la imaato oo 5taas kitaab aad u akhriso sida ugu wanaagsan ee aad wax u akhriso una fahmi kartid. Cashirka 9 dadka rajo geli. Waqtiyada quusta la taagan yahay, waa inaad dadka rajo ku abuuri karto. Qoraagu wuxuu nala wadaagayaa sheeko gaaban oo u dhigan in waqtigii tababarka ay ku jireen hameen isaga iyo dhowr nin oo kale lagu xareeyey meel aad u qabow oo rafaad badan, loona sheegay in meeshaas ay saacado ku jirayaan. Qofkii isdhiiba ee adkaysan waaya keliya gambaleel meesha ku xiran ayuu taabanayaa. Sidaas ayuuna tababarka oo dhan uga harayaa. Iyaga oo quus taagan, waqtigiina ay weli wax ka harsan yihiin, ayaa mid ka mid ah bilaabay inuu hees qaado, weliba hees caan ahayd. Heestii ayay la wada qaadeen, sidaas ayuuna waqtigii ku dhammaaday oo ay ku guulaysteen. Weligaa ha isdhiibin. In aad isdhiibto waxba kuu fududayn mayso. Keliya adiga ayay hadhowta kugu keenaysaa qoomamayn iyo ciil fara badan. Geesinimo ayaa lagu guulaystaa. Geesinimaduna waa adigoo wax yar cagaha dhulka ku sii haya ee aan isdhiibin. Markaad istiraahdo quus ayaad taagan tahay, waa in aad rajo raadisid, sidii wiilkii dhibka haysta awgeed u heesay, ee heestaasi ay ugu dambayn dhammaantood ka dhigtay kuwa ku guulaystay imtixaankii ay marayeen. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan haddaad ka heshay muuqaalka like taabo. Waa inooya muuqaalkeena xiga insha Allah.